khadka telefoonka hadda si toos ah ugu jira gudoomiyaha xisbiga wadani ee degmada Yufle ahna dhalinyarada firfircoon ee ka tirsan xisbiga wadani gudoomiyuhu hadda waxa uu khadka si toos ah uga jira degmada Yufle gudoomiye soo dhawow waxa la sheegay inuu ku soo biirayo xisbiga wadani siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi bal arrinkaas aad u aragtaa dadka islaamiyada badan kifila مثلا شاشة الويديفين وأخص يا محمود حاج حسن الوطني هذا ما كان قلت لك عبدالله وأنه عدوا الدرك ابن كثر شخصي يساعد كل بيش حسن كذي الكبا ما كان هدوه قصة بيريو حسن الوطني وأنه قصة ويننا وأنه قصة ويننا عبد الفراغ أفضل أي الصف صاعد وصدق حسن الله سبيه أدبكي شعب وطنته وأركو إلا بدنا حركو إنه ضدك يدوك يوم ضبوا شغال فإن مصروف صاروا هو يسوكين الله سبيه بكرة وخصوصا دقوين إنها أنا يفعل ودعي يلو فرح بيقص عسالي أصحابنا وراء يعني وقعد لنا وقف الهدية ما خصوصا دقوين إنها خصوصا ودعي يصحابنا معارضة waa si wanaagsan gudoomiye waxa la sheegay waxa maanta shaaciyay inuu si rasmi ah u sharaxan yahay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan arrinkaana sidoo aragtaa waa arkayay waa dawaaday in uu soo sharaxay wadani xisbiga laga doorayo ka hor dareenkayga cabiro xirsi wax badan baan ka aragnay haddaan ka gobolka Sanaag ahaan iyo haddaan nahay shacabka aan afkooda ku hadlayaba wadani marka wani halka uu hankiisu yimaado markaan dareenkayga cabiro waa ku haboon yahay shaqsi ahaan iyo qofnimo ahaan dadna intaba waa tahay ugu dambeyntii gudoomiye maxaad fariin u diraysaa bulshada ku daawan doontaa ama ku dhageysan doontaa bulshada daawanaysa waxaan u dirayaa dalka waxa dadku wax ku gooyaa waxa weeye isku duubnida iyo midnimada iyo qofnimada iyo horumarka marka waxaan bulshada farayaa oo soo jeedinayaa waxa wax lagu gaari karaa oo dad lagu noqon karaa oo qofku meel ku gaari karaa waxa weeye isku duubnida iyo midnimada iyo tinimada iyo qaranka Soomaaliland wadashada lagu gaari karaa waa kaynu ku gaamuray ee ku soo gaarnay waqtiga marka waxaan leeyahay waxa wax lagu gaari karaa waxa weeye isku duubnida iyo midnimada marka waxa guuleed dowladda shacabka reer Soomaaliland ay dhageysanaya waxaan leeyahay hal laga shaqeeyo nabadgelyada iyo amniga iyo isku duubnida iyo horumarka dalka waad mahadsan tahay taasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani ee degmada Yufle mudane Ducaale Ismaaciil Burla gudoomiyaha kaga mahad celinayna dowladda kana siiso aad baan mahadsantahay